وما سنتهاي هذه كجواب فلاش مقدش يارس كله سيكون waxaan aaminsanahay Muqdisho in dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan ay wada leeyihiin ana u sababeynaya inay tahay caasimadda ummadda Soomaaliyeed oo marka laga tago gumeystihii iyo maamuladii ka horeeyay haday boqortooyo ahaan lahayd iyo wixii ka horeeyay soo xukumayay marka laga yimaado xilligii Soomaalidu ay xorowday waxay ku heshiiyeen inay noqoto caasimadda ummadda Soomaaliyeed magaalada Muqdisho dadka Soomaaliyeed ayaana ku heshiiyay dadkuna waxaad u baahanahay inaan fahano waa maxay caasimad oo adduunka oo dhan ayay waxa ka jira wadan kasta wuxuu leeyahay caasimad marka adduunka hadaynu eegno ma arkaysid caasimad la leeyahay reer hebel baa leh iyo reer baa leh marka inaynu waxaas iska saarno oo aynu adduunka la tartanno caasimad marka la yiri oo meeshaas goobta loo bixiyana ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay u siman tahay baa u siman wax kasta oo dawladda meeshaas ka talisana meesha ay ka amban qaadaan weeye marka waxa weeye cid gaar u leh oo sheeganaysa ma jirto haddii ay sheegato cidi waxay noqonaysaa in laga guuro magaalada Muqdisho oo magaalo kale oo dadweynaha Soomaaliyeed leeyihiin loo guuro haddii kalena quruxda aynu arkayno magaalada Muqdisho leedahay ku 1960 markii laga soo bilaabo ilaa xilligii dawladdu dhacaysay ee lahayd waxay ahayd hantidii ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo reer gaari ma gashan maantana waxaynu ognahay intii burburka marka laga yimaado maanta dadweynihii Soomaaliyeed isugu yimi dawlad dhexe ayaana ka talisa marka taasa keenaysa quruxda iyo bilicda iyo waxa mataqaana uu qof kastii ka dhex arkayo inuu wax ku leeyahay iyadoo oo wali ay jirin qabiilkii iyo wixii laga baxay laakiinse anigu magaalada Muqdisho hadda muddo 4 sano aan ku noolahay nin siyaasi oo TV ka hadla ama nin oday dhaqameeda oo arrimo siyaasadeed u geeyeen mooyee anigu wali ma arkin cid iga sheeganaysa magaalada Muqdisho iyo wax qabiil ka sheekeynaya meesha doontaad ka digay meesha waxa doontaan mataqaana ka shaqeynay oo haday noqoto ganacsi cid ku maaraysa kuranaysa adoo reer hebel ganacsiga noocana maxay ahayd haddaad ka timaado kininka shanaad haddaad ka timaado NFD haddaad ka timaado shanta Soomaaliyeed guud ahaantood magaalada Muqdisho qofku wuxuu dareemaa gurigiisii oo kale oo ah yacni gurigu ku dhashay inay magaalada Muqdishona la mid tahay oo ayna ula mid ahayn magaalooyinka kale maadaama la yiri waa caasimadii wala wada leeyahay ma tagtay gobolada saar ahaan maamul goboleedyada caasimadahooda ama meelaha ay ku shaqeeyaan qaar kamid ma tagtay xilligan intan maamul goboleedyada iyo waxa la sameeyay may ka hor ma farqi ma jira marka magaalo kale aad joogtid iyo marka aad Muqdisho joogtid hab dhaqanka dadka ay wala dhaqmayaan qofka Soomaaliga ah farqi u dhaxeeya ma jiro farqi weyn baa u dhaxeeya farqigaasi wuxuu yahay inkastoo qof Soomaaliya aan meel kale dhibaato badan ay ka soo gaadhin haddana qofku meesha uu ku dhashay waxa weeye wuxuu dareemaa gurigiisa hooyado kale marka uu caasimadda joogana sidii gurigiisa hooyo ugu hurdayay si lamida ayuu dareemayaa sababtuna waxay tahay wuxuu u arkayaa meel aanay cidina ka sheeganayn cidinana kala lahayn qof kasto Soomaaliyeedna uu ku arkayo kuwii isaystay xitaa oo gobolada isku haystay inay halkan isku arkayaan kuwii xitaa gumeystuhu inagala maqnaa inay halkan isku arkayaan oo nin kasta uu xil ka hayo nin kastina uu shaqo ka helayo nin kastina uu maaragtay ganacsi ka sameysanayo waa fahmay markii laga soo tago habdhaqanka markii laga soo tago adiga ahaan markii gobol kale aad joogtid ama meel ka degan markii aad joogtid ma muuqata in la kala leeyahay meelahaas kale marka baxs magaalada Muqdisho magaalada weyn camal ama in la kala leeyahay muuqata waxa keenayaba in la kala leeyahay lama kala laha dhulku waa dhulkii Ilaahay sax dhulkii Ilaahay marka laga yimaado dad baa Ilaahay ku beeray oo magaalada Muqdishona markii hore miyigeeda dad baa Ilaahay ku beeray laakiin Soomaalida waxay ku heshiiyeen inay u ahaato meel u dhaxaysa oo dawladii ay ka taliso marka dhulka gobolada ah dadka reeraha ee degan badnidooda ee deegaanka degani adiga xitaa hadeen iyagu ku gelin way kula muuqanay meel dilaaga badan yahay qofku isoranayo macna wax ku yar dareemayo laakiin meeshan oo kale markuu yimaado qof walba ayuu ku arkay wax laga yaabaa degmada uu tagay inuu reer gaara
ay u badnaayeen uu ka arkay waa sax waa ku soo laabanaya waxaa siinaa ninkan odagaha siinaa adiguna jawaabta kale si waa mahadsan tahay waa ku soo noqonaa intaad horta u gelin jawaab iyo waxba aadan gelin magaalo sida lagu yeesho magaalo sida lagu yeesho laba way noqon kartaa haye horta magaalo waxay magaalo noqotaa marka dad ay isku yimaadaan oo meeshaas dhismayaal iyo waxyaabihii adeegii ee lahayd loo sameeyo markaasay magaalo noqon kartaa marka matalan muqdisho iyadoo bannaana hadduu nin yimi oo ninkii deganaa uu boos ka iibsaday ama uu soo degay uu raalli ka noqday inuu soo dego matalan dhulka marka koowaad inaynu faahno dhulka ilaahay baa leh marka labaadna dadka ilaahay uu ku beeray sida gobolada kale caawin manaafacaadsanayaan gobolada kale ilaahay leh ha dhulka dhan ma sheegaya dhulka dhan meel kasta ma sheegaya marka matalan tusaale muqdisho ka hadlayna dhulka kale hadda ka hadlayna caasimadda ka hadlayna caasimadda matalan nin baa deganaa beere u ahayd nin baa yimi dooni wata adigu suu doono ay ku heshiiyeen ama ha u ogolaado inuu digo ama ha ka iibsado ninkaasi maalintaas u yeeshay meeshaas horta taas inaynu ogaano oo inaynu iskaga dheganaan miyigan reer baa iska lahaa taas waa mid oo dadka cadcadka ay xamarweyn xadaaradii leedahay iyo shangaani waynu ognahay waana inaynu u qirnaa daaraha ay leeyihiin iyaga iska leh oo maanta goof reer leeyihiin maaha ta kale magaalo sida lagu yeesho waxay noqonaysaa ninkaa yimi ee magaaleeyey magaalada uu leeyahay wuxuu ka leeyahay ninka kale ee deegaanka degan ee magaalada isna mataqaana caanaha siduu sheegay keena ama cawska keena isna wuu leeyahay oo wuxuu ku leeyahay waa qof bini aadam meesha ku nool oo isna daaru ka dhisanaya sida maanta aynu ognahay qolyihii cadcadkaana way degan yihiin dadkii deegaanka ahaana way degan yihiin dhibku waxa weeye dadku way kala badnaan karaan oo reer way badnaan karaan marka anigu taasaan aaminsanahay lahaanshiyaha magaalada in lagu yeelan karo taa marka laga yimaado marka nimankanaan u jawaabayaa le caasimadda reer baale dhanka siyaasadda markaynu ka hadlayno soomaalidu waxay ku heshiisay 4.5 ninka yiri magaalada muqdisho meeqaan baa ka maqan been buu sheegay wuxuuna been ku sheegay qof kasta oo magaalada muqdisho degan reer ku doona ha ahaadee nin baa matala ninkii magaalada muqdisho deganaa qaar bay dhabay u doonteen xildhibaannimadoodii ile 4.5 baa lagu heshiiyey Soomaaliya ku heshiisay adduunka baarlamaanka marka mataqaana la soo dooranayo ama heer degmo oo maaragtay la leeyahay degmadaas saddex xildhibaan ay yeelanaysaa baa lagu soo doortaa ama in tira lagu xadidiyo oo la dhaho magaalada muqdisho kale 3 milyan baa ku nool 100,000 oo qofba hal xildhibaan baa ku soo aadaya waa tusaale marka Soomaalidu weli kama heshiin dadka Soomaaliyeedna weli lama tirin nin waxa weeye meel gobol iska cidla ayaa wuxuu sheegan karaa 1 milyan ama 2 milyan marka macnaha waxaan leeyahay macnaha siyaasadda magaalada muqdisho meeqaam ka maqan ma jiro laana 4.5 muqaamka u soo laaban isaga dhanba u soo laaban macnaha siyaasadda ka dhawaajin waa u soo laaban hamra u soo laaban waa hawl kale waaye marka caasimadda wax ku soo gabagabeynaa Soomaalidu iyada waxay ku heshiisay 1960 in caasimaddu noqoto Abgaal iyo reeraha ay nimankan sheegayaan way diganaayeen maalinta kama hadlin oo may dhahan magaalada annaga leh shaqeeyo wax lagu heshiiyay in caasimad tahay ilaa maantana waa caasimadii dadka Soomaaliyeed ee maalintaas muqdisho wax laga yaabaa inay in yarahay 1900 iyo 1990 markii la kala qaxayna inta la ekeed doon garanaynaa marka dadkii wada dhistay ee guryaha magaalada muqdisho la wada Soomaaliya oo dhan bay ahaayeen reer gaar ma ahayn سؤال كذا رأينا كل شيء دبر دبر هالمر يسوى كم هالمر مقام نعيب بحنته بسم الله وحي وباهنتها مقام مقالة مقدشة يعني هرت هدتكو إني يرفع كلام ويا وحل جال مقالة مقدشة وحكي لي كم مقام وحوي برلمان كي وجري لها فدرال تاسنا سومالي حل جال 4.5 بكو قيب ستايو قبل ذي كسر صارتين تامر كلاجي ما دمرك حل جال مقالة مقدشة waxay leedahay maamul bay leedahay oo la yiraahdo gobolka Banaadir gudoomiye iyo gudoomiyaal degmooyin dadka deegaanka degan ama u badan ayaa xilligana maamula oo dadka gacanta kuma hayaan oo mataqaana maamulkaasi wuu jira marka federaalka laftigiisa meeshaas looga hadlay federaalka laftigiisa ayaa wax loo kala qaadayaa labo oo caasimadooyinka marka qaar ayaa waxay yihiin kuwa madax banaan iyo oo isku maamula iyo kuwa golada deegaanle oo dawladda federaalka toos u hoos imanaya marka xilligan ma ku haboon tahay in magaalada muqdisho madax banaanino
bay su-aashu tahay waxay noqonaysaa maya sababtu waxay tahay haddii magaalada muqdisho inta state laga dhigo madaxweyne loo sameeyo oo baarlamaan loo sameeyo ay yidhahdaan xidhiidhka ile xilligan soomaalida waynu ogni xaaladeeda ee intay sii qabtaan dhahaan xidhiidhka waxaan u jirnay dowladda federaalka awoodda aynu leenahay maxay tahay waa ku fahmay marka hal sheekh adaba dhigo marka macquul ma tahay walba in magaalada inta ay dowladda ay hadda joogto oo degmooyinka xafiisyada dowladda u badan yihiin haddii laga dhigay ka waran wax oo ka dhaxeeyo Soomaaliya oo dhan dowladda ay ku shaqeyso inta kala soo hartane laga madax baneeyo dowladda dhexe dadka dhulka tirsanayo ay u madax banaanadaan ama xitaa labada shabeelle la kala raaciyo laakiin dhulka dowladdu ay Soomaali dhanka dhaxeyso oo la leeyahay dowladda ku shaqeynayso haddii dhowr degmo lagu soo koobo ka war anigu ma qabo sababtu waxay noqonaysaa dowladda awoodeedii ayaa sii yaraanaysa maanta caalamkanu la gorgortamayna waxaynu kula gorgortamaynona waxa weeye awoodda caasimadda oo ah inay Soomaaliya oo dhan kulminayso maamul goboleedkana magaalada caasimadda looga talinayo waxayna noqonaysaa mataqaanaa in magaalada Muqdisho ay maamulkeedii haysato waxa weeye saasoo kalena aanay dadkii deegaanka deganaa ay maamulkooda haystaan kaliya ay u baahan yihiin matalaadana waa la gaari doonaa waa in dadka Soomaaliyeed ka heshiiyaan oo 4.5 inta laga baxo dadka tira mataqaanaa loogu tixgeliyo inay baarlamaanka ku soo baxaan maamulkiina dadkii magaalada Muqdisho waa mahadsantahay dadka ka wariyay camal maqaam nucbaata Muqdisho hadda isoo koobto okay waxa leh aniga ra'yigayga Muqdisho waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed maadaama caasimadii tahay dadka ku noolna ay ka yimaadeen dhammaan 18 gobol ee Soomaaliya waxay ka dhawaajiyaan canshuurta oo kale canshuurta waxa